الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. waxaan oo axad ah bisha muxaram ay tahay 3 sanadkuna uu yahay 1439 waxaa bilaabanay kitaabkayna manhaaju taalibiin oo alifay imaamkeenu weynay imaamu Nawawi raximahullahu tacaala. kitaabkan oo loogu talagalay dad badan inay ka faa'iidaystaan, bartaan, ku camal falaan, sii akhriyaan, si ummad badan ay uga faa'iidaysato, sida allaha nooga dhigo. kitaabkan manhaajka wax badan ayaa culammada ay siiyeen ictinaa khaas ah. markii sheekhu uu alifay gadaashiisa dad badan sharxay, kuwa waa xaashiyeeyeen, kuwa takhriiray u sameeyeen, qolaba si ay ugu khidmaysay, qaarkooda waa ixraabeen kulligii, qaar adilo ay saareen, qolo walba sidii kitaabka ay ugu khidmaysay, qaar badanna waa xifdi jireen. inta kitaabkan xifdisay ee korka ka baratay xisaab malaha. isagana musanifka laftiisa waa sheegayo oo muxararan ka soo gaabiyey uu yidhi si ay u fududaato xifdintiisa. marka dadka himada caaliyadaa leh xifdigiisa musanifka inay xifdiyaan musanifkaaba ugu talagalay. marka qofka ilaahay subxaana wa tacaala himma caaliya uu siiyo, si kastoon u joogno zamankaynu muxuu ahay mutaakhir uu u yahay, haddana waa la xifdi karaa. inta saaka loo bilaabay ilaahay ha ku anfaco xifdigiisa, barashadiisa, ku camalfalkiisa ilaahay ha u sahlo. sheekha alifay barakadiisa oo imaamu Nawaawi ah. sheekhayna Nawaawi raximahullahu tacaala waxa uu ka mid yahay a'immada waaweyn ee islaamka uu ka mid yahay raximahullahu tacaala. intii uu ka mid yahay wuxuu yidhi lam tasmac bacda taabiciina bimithlihi udunun. dhig ma maqlin taabiciinti ka bacdi imaamu Nawaawi oo kaleetood dhig maqashayo ma jirto. walam tara maa yudaaniihi caynun, ilna ma arkin wax u dhowaan kara. sidoo kaleetood imaamkayna weyn taqiyudiin subki oo mujtahidka ahaay wuxuu yidhi majtamaca bacda taabiciina almajmuucu aladi ijtamaca fi الnawaawi wala taysiiru aladii yusira lahu. taabiciinta ka bacdi waxyaalka khaslooyinka wanaagsan oo imaamu Nawaawi ku kulmay qofay u kulmeen ma jirto yidhi. taysiirka ilaahay ou siiyey taysiir lamida qof ilaahay ou siiyana ma jirto yidhi. waa runtiis maxaa jira isagoo weyn cilmiga uu bilaabay imaamu Nawaawi waxaa lagu qiyaasiyaa 20 jir camal inuu ahaa. sanadiisa inay 20 sano camal ay ahayd. 47 waa ku dhinto waa la ogyahay. maxaa u dhexeeya 27 sano sow ma aha. 27daas waxaa iskula jira intuu cilmiga barahayey, intuu cibaadaysahayey, intuu kutubta sannifaayey, intuu bidcada uu hororayey, intuu duwalka zamankiisa joogay munkarka uu ka reebayey, iyo meel allaale meeshii munkar uu ku arko
waxay marka waxay marag ay ka tahay inuu juhdi badan uu bixiyey. waxaa ka mid ahay juhdiga uu bixiyey xaafidu sakhaawi wuxuu wariyey sheekha nawaawi inuu yidhi laba sano dhinacayga dhulka ma dhiginin, 2 sano dhinacayga dhulka ma dhiginin. habeen iyo maalin uu isku bixiyey waxbarasho. waxaa culammada tarjamadiisa dhigtaa ay yidhaahdeen sheekha imaamu nawaawi raximahu llahu tacaala lam yasrif saaca fii gayri daaca, daacada ilaahay wax aan ahayn hal saac uma iilidin, marka waqti kama la yacminin. juhdigaas zaa'idkaana waa bixiye oo 2 sano in uu soo jeedo. waxaan malaynayaa xertayn hadda cilmiga barata iyo kuwii ka horreeyan soo gaarnaba 1 sano ama nisfu sana waxbarasho darteeda cid soo jeedo habeen iyo maalin inaysan badnayn haddii ay jirto. marka xerta hadda si waxaan bilaabanaysa kitaabkan himadoodana ay ku jirto xataa xifdigiisa ilaahay ha u fududeeya. waxaan u dardaarmi lahaa sida sheekha uu u dadaalay in muxuu ahay lagu daydaysado. in la gaaro shardi ma aha, laakiin bal inuu qofku walba dadkoo kale awood badan yahay juhdigeeda iyo awooddeeda maha ugu dambaysa inay ku bixiso. sheekhayna nawaawi raximahu llahu tacaala dadka ka tarjameeyey waa badan yihiin. waxaa ka mid a xaafidu dahabi aaduu u ammaanay. wuxuu uga tarjameeyey kitaabkiisa siyar aclaami nubala iyo tadkirat alxufaad iyo taariikhu alislaam. hadalladiisa waxaa ka mid ahay huwa alimaamu alqudwa alxaafidu alnabiih alfaqiihu almujtahid shaykhu alislaam xasanatu alanaam mufti اlumma calamu alawliyaa azaahid alcaabid alrabbaani. hadalladaas waxaa iska leh xaafidu dahabi. waxau qariyey sheekh dahabi imaamu nawaawi oo ku sifeeyey calamu alawliyaa inuu yahay, shaykhu lislaam inuu yahay, mujtahid inuu yahay, xaafid inuu yahay. xagga xadiidkana darajatu xaafid ou gaaray. xaafidka waxaa la yidhaahaa halayidhi 100,000 oo xadiid qofkii korka ka barta xaafid la yidhaahaa halayidhi. aqwaal kaleetoodna waa jirta. marka waxaa fadaaishiisa ka mid ah sheekhayna nawaawi raximahu llahu tacaala imaamu subki oo imaam jaliila ahay, darajatul ijtihaad inuu gaaray khilaaf uusan ku jirinin ayaa barakayso jiray. meesha imaamu nawaawi oo kutubada uu ku akri jiray meel la yidhaha daarulxadiid uu ku akri jiray imaamu nawaawi kutubta ou ku galgalo jiray kasoo barakayso jiray imaamu subki. waa marka uu dhahayo wafii daari lxadiisi latiifu bacna calaa busuqin lahaa asbu waaawi lacaliya an anaala bixuri wajhi makaana nasahu qadama nawaawi. sheekh nawaawi in la barakayso la yaab maleh, maxaa yeele isagaa dadka ahlu khayrka ah jeclaa jiray, barakayso jiray. suufiyaalka muxuu ahay aadou ou ixtiraami jiray raximahu llahu tacaala. jalaalu suyuudi wuxuu yihi kaana idaa dakara asaalixiina dakarahum bitacdiimin wa tawqiirin waixtiraamin wa dikri manaaqibihim. haddii saalixiinta oo magacooda uu soo qaado waa weynay jiray, waa ixtiraami jiray, manaaqibtooda iyo maxaasintooda ou ka sheekay jiray. qofkii arka kitaabkiisa la yidhaahdo tahdiib alasmaa wallugaat iyo
kitaab kaleetoodo saalixiinta uu ku alifay sidaasuu ku arkayaa mashaayikhda khusuusan mashaayikhdiisa marka uu ka sheekeynayo aad iyo aad oo u ixtiraama maxaasintoodana oo u sheekay oo u xusayaa raximahu llahu tacaala. sheekhayna nawaawi raximahu llahu tacaala wuxuu ahay nin cibaado badan ilaahay baryihiisa ku dadaala nabiga calayhi salaatu wasalaam ku tawasula ee aan isku hadlaynin dadaalkiisa keliyaha nabigeena calayhi salaatu wasalaam ku tawasula u ahay. waxaa ku tusinaya sheekh nawaawi bukhaariga sharaxa uu ku sharxay oo la yidhaho atalkhiis sharxuljaamici saxiix. kitaabkaas wuxuu ku yidhi marka uu bilaabayo wahada xiina ashracu fi sharxi اlkitaab mustaciinan biاllahi tacaala mutawakilan calayhi mufawidan amrii ilayhi mustashfican birasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalama المضاف في هذا الكتاب إلى سنته صلى الله عليه وسلم في تيسير إتمامه مع الصيانة وعموم الفائدة أو كل دكتور كيس الإله. طبقة مختصر طبقات الفقهاء غزالي ترجمني سمرك أو شاغي إمام النووي وحويري رضي الله عنه غزالي أولى الجلال رضي الله عنه إلهي غزالي